بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ugu horeyn waxaan bogaadinayaa dhammaan qaybaha bulshada, siyaasiyiinta, dhalinyarada, hooyooyinka, saraakiisha oo ajiibay isu imaatinkan loogu yeeray. waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin. mar labaad waxaan meeshaan uga mahad celinaynaa suldaanka beesha reer Xaaji Saleebaan, Suldaan Mawlid, iyo odayaasheena dhaqanka ee maalmahan u istaagay wax ka bedelista wax badan ee ka dhex jiray beeshaan inay wax ka bedelaan, marada u xirtay, u istaagay, haddana aan dareemayno isbeddelka ballaaran ee ay ku soo kordhiyeen beesha xilligan cusub. waxaan rabaa inaan ka hadlo ajendayaasha shirka caawa uu ku saabsan yahay. kulankan waa laba ajende. kulankan ma ahan kulan siyaasadeed, kulan eed, kulan la isku dacaayadeeyo, kulan dad loogu dan leeyahay, mid dad gaar ah wax loogu samaynayo ma ahan. waa kulan guud bulshadan reer Xaaji Saleebaan ay caawa uga tashanayso waxyaabo qaar ka mid ah culeysyada ka jira deegaanka. ajendaha koowaad waa sidii kor loogu qaadi lahaa wada shaqaynta qaybaha bulshada, gaar ahaan caasimadda, sidii la isugu duwi lahaa, la isugu ula duwi lahaa, iyada oo looga fadhiyo wax badan oo dadkooda uga maqan heer state, heer gobol, heer degmo. qodobka gabagabayna labadaas dhacdo ayaa caawa noo daaran. waxaa mar labaad mar saddexaad mahad celinaa dhaqanka beesha oo dhammaan ku soo xaadira halkan. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah. bacd alsalaam, waxaan rabaa inaan ka hadlo in yar. dadkii caqliga lahaa oo badnaa way iga dambeeyaan, oo aad u caqliga badnaa ama wax u garanayay. waxaan rabaa in yar inaan ka hadlo bulshada meeshaan isugu timid. bulshada meeshaan isugu timid cabashada waxa ay ka cabanayaan, waxyaalaha ay ka cabanayaan, iyo waxa ka midka inaan in yar ka hadlo, iyo danahooda guud ahaaneed. sideedaba horta waxaan idiin sheegayaa bulshada halkaan isugu timid oon anugu ka mid ahay, dadku waxay wax noqdaan ama wax taraan ama wax meel mari u yimaadaan markay tashadaan, isku xirmaan, hoggaan yeeshaan, ayay waxay ogaadaan jihada laga xigo iyo waxa ka hadlaysan ogaadaan. waa meeshii laga yidhi macnaha gacmo wada jiray wax ku gooyaan. haddii dadku wada jiro wax kasta ayuu gooy karaa, wax kastana wuu qaadan karaa. laakiin hadduusan wada jirin oo qofba meel uu jihadiisa iyo danihiisa gaarkaa u raaco, waa sidaasay waxaa ku lumaysa arrintii bulshada dhexdeeda ahayd oo bulshadu ay qabsan lahayd ama dhexdeeda ka hadlaysneed, halkaasay ku baadiyoobaysaa. laakiin haddii la siiyo waqti oo ummaddu ay waqti ogolaato inay siiso qofku inuu shaqaysto, inuu wax qabsado, waa muhiim. laakiin haddana inuu bulshada waqti siiyo, waqti u bixiyo ayaa muhiim ah. isku xirkina bulshadu haddaysan isku xiri lahayn waxba waqti ma bixi karto. taasi waa halkaas. waxaan leeyahay caawa madaxdii Saleebaan idinla joogta, waa in la helaa ama idinla ogaanaa insha Allah in bulshada dhuusamareeb degan loo sameeyo isku xir rasmi ah oo u raadiyo xuquuqdooda, ama maamul uga maqnaato ama magaalada dhexdeeda uga maqnaato. isku xirkaas waa in loo sameeyaa. bulshada reer Xaaji Saleebaan oo reer dhuusamareeb ah oo macaawa rabta halkan ay uga tashato oo inteedaan isugu yimid dantooda inay wada tashi iyo wanaag iyo hoggaan ay ku samaystaan ayagoo madaxdooda iyo
suldaankoodii oo dhaqamadooda sharafta badnaa ilaahay u makaniyay horta markooda iyo mar labaad iyo mar saddexaad buu hambalyeynaya waana ku faraxsanahay bixaqiiqa aniga kulli intii oo 4 sano busmare waan joogay waxaan u maleynayaa meel kastaba ha gaadho meel kastaba iga xarig furatee ugu yaraan kulankan caawa inta aan wax xasuusanahay 11 fadhi oo ku raadinayo in iskugu yimaadaan reer Soomaaliyeed oo tala ay isku raacaan ku qabsadaan in ay isku dayo alxamdulillah rabbil caalamiin caawa ku faraxsana farxadda lama koobi karo meeshaan dadka iskugu yimid quruxdooda iyo miisaankooda iyo mugooda waxaan rajaynayaa in ka soo baxaan hadallo ama qodobo la isku raaco qurux badan iyo hoggaan fiican oo meeshaas laga ambaqaado lagu qanacsan yahay oo ayagu ay kartidooda dadnimadooda iyo mas'uuliyadooda ay ku doortaan oo looga gudbi doono waxyaalo badan oo caqabadaha oo la tirsanayay oo la soo maray iyo kuwa hadda ka bacdina yimaadaan ba iskaga difaaci doono waxba hadalka sii badin maayo waxaan leeyahay ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo dhamaanteen wa barakaatuna saxaabta sharafta leh mas'uuliyiinta meeshaan fadhisa ugaaska dhammaan odayaasha meesha fadhiyo oo reer Xaaji Salebaan suldaankeena suldaan Mawlid soo dhawow suldaan Mawlid meeshaan waa meel aan aad kaaga baahanahay haddaan reer Dhuusamareebeed nahay wax kasta waa ku xaqiranahay wax noo qabta hadda koormaan arag laakiin waxaan caaw kugu faraxsanahay si aad noogu timid oo Ilaahay noogu soo kaafadeeyay dhan walba ha noqoto xagga maaragtay deegaanka ha noqoto xagga maxaa tiraahday hawlaha ka jira magaalada ha noqoto wax kasta waa ku xaqirana suldaan waxaan ka rabnaa marka bulshooyinka reer Xaaji Salebaan si caawa ayadoon loo kala kicin haddana dabacsanaantana haysataa ma haysano hoggaan qabta oo oday dhaqameed ah gabdhaha wax walba u taagan kii la xira gabdhaha u socda kii wax soo gaaraan gabdhaha ordaya raggeena waa jijiifaa suldaan Mawlid caawa kaad ciidamada ku tuureed soo qabo halka odagii caawa noogu caleema saar maxaa tiraahday anaguna waa kugu raacsanahay laakiin haddaad saa nooga tagto dee bulsho waxaan noqonaynaa dhamaatay waa si gabal si dhacaabanahay suldaan waxaan rabaa bulshadan degan caasimada galmudug Dhuusamareeb beesha reer Xaaji Salebaan walaalayaal annagu kelmaddan waxay tahay in aad hormarisaan si kasta oo dawladnimada lagu hormarinayo hadday tahay canshuur bixinta hadday tahay bilicda iyo ganacsiga hadday tahay horumarinta dhismaha hadda maadaama aad degan tihiin caasimadii aad degan tihiin oo odayaashii dhalinyaradii ganacsatadii intaba ayay meeshaan caawa ay ka hadleen annaguna aanu idin nimid waxa weeye dadku markay dad badan noqdaan waxa weeye waxba ku dhacaha arrimaha aad ka hadasheen oo bulsho hadday badan tahay wax badan baa ku dhacaya marka sidaas daraadeed in aad isku timaadaan oo aayihiin ka tashataan oo caasimada dadka degan ay xalfad qabsadaan annagana nagu casuumaan waxaan leenahay wax aad iyo aad u qaaliyo weeye dadka idin la midka ah ama ha idinka badnaadaan ama ha idinka yaraadaan deegaanka degan ayaad adinkuna ka mid tihiin waxaa la rabaa inaad dadka nabadgelyada iyo walaalnimada iyo horumarka aad dhinaciina ka ilaalsataan odayaasha idinku matala caasimadda haddii ay dhaliil leeyihiin waa toosinaynaa haddii ay leeyihiin mataqaana haddii la kuuray ammaanna waa ammaanaynaa waxaan ognahay in urur dhalinyaro idin dhisan yahay waxaan ognahay in urur gabdho idin dhisan yahay golaha deegaanka aad xibna ku leedihiin aad leedihiin mataqaanaa odayaal xaajada idin gala saraakiil haddee sida aad la socotaan madaxweynaha maamulka ugu sarreeyahay waa nin reer xaajiya sidaas daraaddeed marka ha ismartiyeynina cidina inkama lahan cidina inkama xigto xaquuqihiinna iyo baahiyihiinna adinku aad leedihiin hadday tahay dhinac kastay tahayba dadkii idin raadin lahaa oo idin mudan in raadinteeda waad haysatiin annaguna waa ila joognaa garabkiinaan nahay aniga ay jeedaan
waxaan ku dhashay caasimadda galmudug dhuusamareeb aan ku dhashay xaafadda dayaxaan ku dhashay gurigaygii waa ku yaallaa dadka degan oo ku dhashay oo laakiin aan weli hadda ku soo laabanaan ka mid ahay waxaan rajaynayaa haddee gurigii anigu aan ku dhashay welina ma gadan oo ma aanan iska xaraashin meeshii igu yaallaa marka waa inta maqanna way dhisanahayaan caasimadda dadka horumarsanahayaan ka mid nahay marka sidaas daraaddeed walaalayaal dhexdiinna muhiimad waxay tahay dad isku fiyo waa wax wada qabsada waan ognahay meeshaan dad badan baa yimaada dad kuraas raadinahayaa yimaada dad waxaa yimaada haddii alla kuu ron yahay dana kale leh marka dadku ma yara laakiin isku xirnaanta meesha ka maqanna waxaan rajaynaynaa haddii mar la helo dad deegaankii degan oo ayagu mataqaanaa shaqadii iyo hawshii ayagu ay lahaayeen qabsada ummadda kale oo dhanna waa ay ku safaylahayaan marka sidaas daraaddeed guddoomiyaha degmada guddoomiyaha waa la shirnay guddoomiyaha gobolka la shirnay madaxda maamulka oo dhan baan inta badan is aragnay marka adinku un baa laydinka rabaa inaad kaalinkiina soo buuxisaan cid waxa idinka hortaagan ama cid waxa idin diidan ma jirto annaguna waa idinla raadinaynaa adinkuna waa raadsanaysaan waxaan leenahay guul iyo gobonnimo farxad ku noolaada aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh